kooxahan burcadda ayaa weerarka waxay kusoo qaadeen goob ganacsi oo ilaayeen muwaadiniin Soomaali ah oo ku taalay deegaanka Karafoten ee dowladka magaalada Cape Town waxaana halkaasi ay ku dileen milkiilaha goobta ganacsiga lahaa. falka weerarka ay kooxaha burcadda ku dileen muwaadinkan Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Nuur Bashiir Xasan Nuur Bindo wuxuu ahaa mid ka duwan weeraradii hore loogu bartilmaameedsan jiray ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka South Africa sida uu sharaxayo Cumar Jimcaali oo goob joog u ahaa marka uu falku dhacay. waxay ku murmeen ragga tuugada waxay soo galeen dukaanka waxay rabeen alaab inay qaataan si oo bilaash ah ama free alaabta markii ay dukaanka soo galeen way ay qaateen way la bixeen alaabta maxay markii waxay ahaa cabitaan iyo bag of ice so gaarigooda ay dhaxgasteen isagu uu soo baxay gaarigooda ka soo dagay gaarigooda dhex tagay alaabtii ka soo baxsaday wuu soo qaatay way ka soo daba hadleen markaas bay hanjabaad ay sameeyeen iyo waad arki doontaa caaw wixii kugu dhaco marka hanjabaad cabitaan 1.5 ama hal litir iyo bar ah ma dibna iga soo laaban xilliga hanjabaad ay dhacaysay iyo xilliga dilka u dhacayna waxa u dhaxeeyay kaliis wax ka yar saacad iyo bar. goobjoogahan ayaa waxa intaasi ku daray in ciidamada booliiska ay keeneen sawirro shakhsiyaad looga shakisan yahay in falkani ay ka dambeeyeen balse ay ka dhax aqoonsadeen mid kamid ah dadkii u hanjabay Allah u naxariistay marxuumka geeriyooday. booliiska way noo imaadeen markii isla markii uu ka dhacay su'aalooyin bay weydiiyeen waxay noo soo bandhigeen sawirro fara badan marka waxaana aqoonsanay mid kamid ah suspectaradii galabtii hore aan aragnay ama dadkii laga shakiyay ay maanta hore dagaalka dhaxmaray isaga iyo marxuumka dan waxa dhacday in mid kamid ah aan naga sheegno aan dhahno midkan ayuu ahaa waxaan tilmaamnay gaariga nooca uu watay inta qofood ay ahaayeen iyo waxay meesha ay joogaan inta badan dan waxay noo sheegeen in ay investigation sameyn doonaan. mid kamid ah ehelka ganacsadahan geeriyooday oo aan kula kulmay goobta lagu aasay marxuumka ayaan waxa weydiiyay wax uga qorsheysan mar hadii la helay raadka kooxii falkaasi dilka geystay. hadii aan dawladda South Africa amba safiirka Soomaalida u jooga South Africa Soomaaliya oo wax noo qaban karo oo ninka kiis laga furo in xabsi la dhigo xataa awoodi karayaan waan awoodnaa inaan raadino soo saarno xataa aan dhaxna ninkaan wahay laakiin hadaa bari atir ninkaan wahay tomorrow adiga lagu dilaa nin walba marka ujeedada waxa waaye culayska waxa keenay oo Soomaaliya shaqo leedahay hadaa kiis furto bari adaa kiis isugu dilaa hadaa shibkii way soo afjari wayso marka waxa waaye adiga dhafahaaga oo cabsale aan Soomaaliya shaqo wata shacab fara badan oo Soomaali ayaa isugu tagay qabuuraha Adloon oo lagu aasay marxuumka waxaana wajiyadooda aad looga dheehan karay in ay si weyn uga xumaadeen falalka arxandarrada ee xilli walba lagu hayo muwaadiniinta Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika. Cabdillaahi Maxamuud Amiin Cabdillaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa.